waxaan runtii mahad aan u celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala marka labaadna jaaliyada reer Minnesota gaaraan gobolkan Minneapolis gobolka Minnesota magaalada Minneapolis oo aan ka tirsanahay inta aan khudbadeeda bilaabin waxa indhahayga qabanayaan dad geesiyaal ah oo iigu yimid magaalada Xamar oo runtii aad aan ugu farxay ugu diirsaday markii ay igu yimaadeen inta indhahayga qabtaan ka bilaabaa dhinaca midigta walaashii Saadiya fadhida oo runtii qof geesi ah hatta markay timid hotel ma aysan seexan waxay deganeed guri bay deganeed xaafad bay deganeed hatta hotel ma aysan deganeen marka Saadiya wax badan bay qabatay waxa halka fadhida Aamina oo mataqaana waqti dheer iyo waqti badan nala qaadatay aad baan maaragtay soo dhaweynayaa halkan indhayga waxa ka qabtay nimco halkan timid iyo ubax baan u maleynayaa halkaas dambaan ku arkayay waxa kale oo magaalada noogu yimid waqti badan ila joogay Cabdisamad Nuur Bidaar oo qofkii ugu dambeeyay hadda ka soo tagay ah waxa kale Minnesota waxa moodaa waayadan dambe sidii hore waa laga geesisan yahay aad baa loo yimaadaa waxa halkan hadda ka maqan Cabdullaahi Cilmi Mooge Ali Yuusuf gabar ubax la yiraahdo hadda aan uga soo tagay magaalada Muqdisho dhammaan inta timid iyo inta rabta inay soo aado waan u mahad celinayaa warbixintana iyaga ka qaadan kartaan anigu waxa laga yaabaa inaad tiraadaan jagaad ku haysataa jagadaad cishanaysaa laakiin iyagu jaga kuma haystaan wayna yimaadeen Cabdisamad xaafad kamid Muqdisho uu san tagin male sawirada uu ka soo qaadan uu idin siin doonaa every xaafad kasta oo Muqdisho isagoo badda liida ku dabaalanaya ayuu idin hayaa marka intaas waxa weeyaan dhiirigelin aan rabaa inaan idinku dhiirigelina wadanka timaadaan waxaan rabaa inaan warbixino gooban aan bixiyo maadaama uu joogo ra'iisul wasaare ku xigeenkii ana wasiirka gaashaandhigga hadal badan ima furna hadalka intiisa badan protocol ahaan ra'iisul wasaaraha iga leh laakiin waxbaan idin ifinayaa saddex qodob baan rabaa inaan ka hadlo qodobka ugu horeeya wuxuu yahay magaaladii Muqdisho waa nabad magaaladii Muqdisho waa magaalo qurux badan oo nabad noqotay oo airportkeedu uu shaqeynayo dekedeedii uu shaqeynayo magaalada xafiisadeedii oo dhan ay furan yihiin waxa tusaale ku ah airportka Muqdisho marka ka degto waxa jira systemka Mareykanka aad ku aragteen oo kale fingerprints baa laga qaadayaa eye scan baa laga qaadayaa alaabtaada waa la fiirinayaa check up baa jira and all kind of mataqaana airportada caalamiga ay leeyihiin magaaladeena Muqdisho waa leeyahay airportkana aadan cadda airport magaalada dekada sida aad sawirada ku arki doontaan anaa idin keeni doona insha Allah idin siin doona ama barnaamijyada aad ku ama TV-yada ka aragteen dekada wixii qashina oo ku jira waa laga sifeeyay waxaana nasiib u yeelanay inay ku soo xirtaan maraakiibta waaweyn oo aad u waaweyn inay ku soo xirtaan hadda markii wadankii dhibaatada iyo abaaraha ay ka dhaceena maraakiibtu waa isdaba joogaan waa iska sugayaan maxaa la yiraahdaa in ay soo xirtaan marka iyadana halkaas waxa ka jirta faa'iido kale oo fiican dekada iyo maaragtay customkiina sidii la arki jiray ee sax ah ayuu u shaqeeyaa anigu waxaan joogaa wasaaradda ganacsiga warshadaha xafiis ayaan ku leenahay dekada alaab kasta iyo markab kasta oo soo dega waxaan ku leenahay control check annaga baarna annaga fiirina waxaan inay magaalada gali karaan in kale wasaaradda maaliyadda joogta turbatariyadii baa joogta shaqadii wasaaradaha ama shaqadii dekadanu sidee tahay bay u socotaa xafiisyada dawladda dhammaan way fakshan garanayaan kulli way shaqeynayaan ilaa iyo madaxtooyada ilaa iyo maxaa la yiraahdaa hadday noqon lahayd duqa magaalada minishiibiyadii maxaa la yiraahdaa nimankii la oran jiray trafficada dhammaan way shaqeynayaan qofkii u haystay Muqdisho meel baaba'day inay tahay ma aha meel baaba'day caadi ayay u socdaan waxaa soo noqday rajadii iyo maxaa la dhahaa iyo qarannimadii Soomaaliya ayaa dadkii dib ugu soo noqday magaaladii wadooyinkii oo dhan ayaa la dayactirayaa dadka gacmahooda ku xaaqayaan dumarka Soomaaliyeed waxaad arkaysaa xaaqimo ayay wataan wadada iyaga xaaqaya gacantooda ayay ku sameynayaan dadkii Soomaaliyeed meelihii jajabnaa oo dhan waa la aasayaa waa la waxeenayaa dhulkii nimanka nabadiidka ee shabaab ay ka baxeen oo ay qodeen oo xaafad walba ay qodeen dariiqyadii ay qodeen maanta xaafadii dadkii Soomaaliyeed ayaa dib u aasaya dib ayay u aasayaan
wadooyinkii iyo xaafadiina sidoodii ay ku soo noqonayaan. waddankeena waxaa ka dhacday maalmo dhoweed abaar aad u xun. abaartaasi waxay sababtay in dad badan oo deegaan ahaa gobollada koonfur galbeed ha u badnaadaan inay dadku iyagoo aan cidi ma aragtay aan u yeerin dhibaatada dhacda iyo abaarta iyo gaajada darteed inay soo qaxaan oo ay magaaladii muqdisho subaxyada ka mid ah caadi ugu soo waabaristaan. soo gelitaanka ay soo galeen dadka shacabka ah ee dhibaatada soo gaartay abaaraha ay soo gaartay waxyaabaha ay sababtay waxaa ka mid ah inay ummadda Soomaaliyeed isu gargaaraan in la isu kaco dal iyo dibad. idinku ka mid tihiin reer Minnesota oo aad u soo gurmateen oo ay nooga yimaadeen walaaladeen Cabdicasiis Maaxey iyo Nimco iyo Ubax iyagoo wada mataqaana lacagtii iyo dhaqaalihii iyo wixii aad iska soo ururiseen iyagoo wada ayay noogu yimaadeen. dowladda Soomaaliya waxa ay samaysay xeryo ayay u samaysay xero la yiraahdo badbaado iyo xero la yiraahdo rajo ayay dadka ku kala xareeyeen lagu kala xareeyay. xerada badbaado waa xerada ugu weyn oo dadka maaragtay barakacayaasha ay degan yihiin. waxaa dowladdu ay samaysay hay'adda maareynta musiibooyinka ama disaster management agency oo aad iyo aad u shaqeysa arrimaha abaaraha iyo arrimahaas oo dhanna ma aragtay waxay aad iyo aad ugu howlan. wadamadii soo gurmaday wadamo badan baa soo gurmaday. waxaa ugu muhiimsan dowladda Turkiga oo runtii wax ma aragtay qayru caadi ah oo walaaltinimo kale iyo laaba noo muujisay. waxaa inoo yimid ra'iisul wasaaraha Turkiga Erdogan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. runtii waxaa ka dareemaysaa ninkaas maalintuu noo imaaday inay ka daacad tahay ka dhab tahay xaaskiisa iyo caruurtiisii buu keenay. ballanqaadyadii uu sameeyey oo dhanna waa ay fuleen. ballanqaadyadii uu Erdogan uu sameeyey ra'iisul wasaaraha waa ay wada fuleen dhammaantood wayna socdaan. weliba intii uu ballanqaaday in ka badan ayaa socota. ninkaas iyo waddankaasiba waxay noqdeen waddan walaal ah oo xilligii loo baahnaa yimid aad iyo aadna noo garab istaagay. anigu waxaan ka mid ah guddi wasiiraha oo maalin dhaweed soo booqanaya xeryaha qaxootiga. xeryaha meelo badan bay ku yaalaan. waxaa ka mid ah xaafadaha ay ku yaalaan sayidka hoostiisa qofka yaqaan Howlwadaag ilaa iyo Ceel Garweyne meelo badan Tarabuunka. meelihii aan tagay waxaan ugu tagay dad Turki ah oo qaxootiyada dhex degan oo caawinaya. waxyaabahan la yaaba naaga gabdho Turki ah oo dadka la jooga ku daaweynaya la seexanaya oo aan waardiye xataa aan haysan. dadkaas waxaa kaloo ka mid ah wadamo badan oo islaam ah noo soo gurmaday. Kuwait baa ka mid ah ma tirin karo dhammaan imaaraadka kulli waa inoo soo gurmadeen. dadka shacabka Soomaaliyeed dib iyaga laftirkooda waa isugu gurmadeen. waatan meel walba laga tagay. arrinta abaaraha dhibaata ahayd laakiin Soomaaliya haddana waxaan filaynaa inay noqoto midii looga bixi lahaa dhibka oo rajo ayayna gelisay. arrintaasi arrin weyn weeyaan. arrintii qaraxii daraad dhacay qaraxa markuu dhacay anigu waan fadhiyay waana shaqeynayay. talaadadii bay ahayd. xafiiskaygaan fadhiyay hargaha iyo saamaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. sartaasi waxaa degan 7 wasaaradood iyo xafiiska hanti dhowrka. 7 wasaaradood hoos waxaa ka degan wasaaradayda ganacsiga. dhinacan kale waxaa iga degan wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda tacliinta, wasaaradda qorsheynta qaranka, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta. dhammaan saasay u degan. waa 3 dabaq building waa 3 floor building weeyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ma aragtay runtii nimanka dhibka ay wadeen nimanka nabadiidka ah ee shayaadiinta ah ee diin islaam iyo diin kale midna aan haysan naxariis aysan ku jirin. waxyaabaha ay soo maleegeen ruuxii taagnaa ee arkay un baa ka sheekeen kara. haddaan damcayna idinkaga sheekeeyo ma qiyaasi karo. waxa miinada iyo bamka iyo waxa ay soo xireen waxa ka darnaa waxa kale ay ku soo shubeen oo dadka marka ay gubay ama aashitaat ama wax kala ahaado. baabuurkii marka ay ku soo galeen si kasta u soo galaan baabuur weyn oo UD ah qaraxii ilaahay waa uu ka badbaadiyay sartii ay la rabeen si toos uma gelin. dhinacyada ayuu u baxay laakiin wuxuu aad iyo aad u baabi'iyay caruur Soomaaliyeed oo imtixaankii qaybtiisii hore ku guuleysatay intoodii baastay ee u timid inay biri ama saad dambe loo kaxeeyo Turkiga. waa intii baastay ma intii dhacday.
markii hore imtixaanka la gelayay ma ay qarxin mana aysan doonaan intii xulka ahayd ee la isu keenay ee natiijada fiirsanaysay ee biri ama saa dambana la kaxeen lahaa oo diyaaradooda u taagneed weeyaan intay qarxiyeen iyo waalidiintii dhashay iyo maxaa la yidhahdaa ciidankii waardiyaha albaabka taagnaa iyo basaskii ka shaqeynaya magaalada dariiqa waad aragteen dee waddadu waa waddo busy ah oo mashquul ah baabuurta ka timaada xagga iyo madiina ama ceelasha ama u socota ceelgaabta waa waddada ugu mashquulka badan dadka lugeynayaa ka badan halkaas ayay ku qabsatay qaraxa markuu qaraxa dhacay anu nasiib wanaag fadhigii kursigii shirki aan la lahaa wasaaradda shaqaalayga waan dhameeyay waan ka soo yaro kacay mana aan gaarin albaabkii aan rabay inaan ka baxo qof ka mida dadkii aan qaabilayay ayaa ila istaagay oo waxaan istaagay hallwayga dhexaan istaagay aan ku qaabilayay markaasuu qaraxa dhacay hallwaygaanoo taagan marka qolkii aan ka soo kacayna waa burburay baabuurkii aan rabay inaan raacayo meeshaan u socdana waa burburay magaaladiina si kale u ekaatay marka waxaan ugu imid meesha dhaawac fara badan iyo dad gubtay iyo baabuur ololaysa adugu markiiba waan ka tegay hotelkii aan deganaa u dhawaa baan tegay isna sidoo kale u burbursanaa waan soo dharbadashay waan soo noqday go-yaal iyo waxay hotelkii yaalay baan soo qaaday markaas ayaan bilownay inaan meydkii iyo dhaawacii meesha aan ka gurno aniga iyo wasiiru dowlaha gaashaandhigga wasiirka ninka ku xiga oo runtii wasiirkii ugu horreeya meesha yimid ahaa kadibna waxaa noo yimid wasiirro kale iyo dowladdii iyo ambalaas iyo amisom iyo aduu calaa taxal intii aan badbaadin karnay oo dhakhtar la geen karo waan u geynay laakiin wax ku daatay dadka baa jiray oo qofka aadan garanayn waxa uu yahay wuu gubayay marka aashid waxa marka dad cadow ah oo cadownimadooda in la qariyo aysan ahayn weeyaan dadka Soomaalida nala sheeganaya meel walba inuu joognana nimankaasi dagaal bay noo cadeysteen dagaal aan u cadeysano waxaan ku soo gabagabeynayaa walaashay canab waxay ka hadashay arrinta badda way soo noqnoqotay sidaad la socotaan maalintii ugu dambeysay maalmihii ugu dambeeyay baarlamaanka Soomaaliya ayaa aad u fadhiyay si aad u qoto dheer ayaa loo falanqeeyay waana laga hadlay meelna waa lagu xiray marka taas waxaan u maleynayaa halkaas ayay maaragtay insha Allah taala ku filnaan doonto mar hadduu baarlamaanka go'aamiyay baarlamaanka go'aankiisaan u daynaynaa Minnesota waxay ka mid tahay meesha laga taageeray badda waxaana ku amaanaynaa dadkii soo abaabulay sida Somali Talk iyo maaragtay ashqaasta kale ee reer Minnesota ee markii ugu horeysay ka soo hadlay ugu dambeyn Soomaaliya way idin baahan tahay Minnesota si gaar ah idinkugu baahan tahay dadka jooga Soomaaliya ana reer Minnesota aniga hal la weydiiyay magacan laga haysto aniga marka la arkaa leeyahay Minnesota magaaladaadii iyo dadkaaga waxa loo haystaa meesha ugu tirada badan dadku inuu yahay meesha ugu tayada badan inaad tiin meesha ma taqaana dalka Soomaaliya haddaad u soo jeesataan wax ka qaban kartaan inaad tiin marka rajadan laga qabo iyo awoodda aad leedihiin iyo kartidiina waxaan idinku talin lahaa dadaalkii aad sameyn jirteen inaad laba laabtaan in aad laba jibaartaan in aad ka qaadataan mashaariic la taaban karo oo la garanayo in aad ka qayb qaadataan hadda reer Minnesota oo loo bixiyo Minnesota haddaad magaaleyn lahaydeen Minnesota iyo Muqdisho haddii la magaaleyn la ama la mataaneyn la walaaleyn lahaa waa arrin aad kula talnaa inaad sameysaan hadday Muqdisho idinku weyntaayna wasaarad u qaato maanta aniga iyo gaashaandhigga idin la joognay wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradii gaashaandhigga noo dhisa hadda reer Minnesota tiin inta ka badan aniga waa idin la sii joogi doonaa muddo isbuuca waxaan ku soo dhaweyn doonaa ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise falyatafadal السلام عليكم. waxaan ku bilaabayaa arinta uu sheegay wasaaradda dib noogu dhisa runtii waa in aragtan ba fiicnaan lahayd meesha xafiiskaygu yahay
muraayadaha waxa wada jabsan yihiin xabad baa ka buuxda bullet holes darbiyadu waa burbursan yihiin marka horta meeshaas way meeshaan ka shaqeynaa waa in ogaataan laakiin waxaan ku bilaabayaa marka hore sharaf weyn bay ii tahay inaan caawa isu nimaadno runtii namarti qaadaan oo la isugu yimaada halkan oo la iswaraysto aad baan ugu mahadcelinayaa dadka qabanqaabiyey runtii isaragan caawa town hall meetingka igeer raali noqna waan yara daalanahay xoogaa afartii subaxnimaan ka soo baxay California laakiin marka laygu yidhi in lagu arkaa la rabaa oo la iswaraysto khasab bay igu noqotay inaan imaado waanan ku mahadsan tihiin inaa ii yeedhaan waanan ogolahay in la xisaabtamo runtii waxyaabaha ay dowladdan aan ku jirna kaga duwan tahay dowladihii hore waxa weeye in nala xisaabtamo waa ogolnahay waa maqlasan sama horumarkana wuxuu ku yimaada marka hore dadka xukuumadda u shaqeeya inay ogolaadaan inay yihiin runtii public servants u shaqeeya idinkaa laydin shaqeeya iyo dadka Soomaaliya jooga iyo Soomaali meel kasta joogto marka waxaan yara doonayaa xoogaa runtii wasiirku si fiican buu idinku dhiibay warka ka socda inaan xoogaa idin kor maro dhinaca amniga iyo abaaraha iyo horumarkii la gaaray laakiin waxaan ku bilaabayaa markii hore inaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u diro tacsi tiraanyada kadib markii argagixisada aad ogeydeen runtii doonaysa Soomaaliya maanta inay ku celiso mugdi iyo juhud waxay ku sameeyeen ardadeena iyo dadkeenaba inaan runtii eheladii ay ka dhinteen dadkaas aan tacsiyeyno dadkii ku dhaawacmana ilaahay uga barano inay caafimaadkooda si degdeg ugu soo noqdo laakiin waxaa ogaataan waa markii labaad ee sidan laynagu sameeyo ee weliba xaggii tacliinta si direct ah laynooga taageerayo dhalinyaradii soo kacaysay waxay noo baranaysay mustaqbalkii Soomaaliya laynaga taageerayo marka su'aashu waxay tahay in badan baan cabanay waatii halkan laga hadlay la yiri ma garanaysaa islaam baan ka dhageystay raadiyoga maanta kala TV-ga ama waxa la naga celiyo ama aan isdhibno waxa weeye marka runtii xagga dawladda ma shacabka naftirkiisa ama idinka mas'uuliyad weyn baa idin saaran waxa weeye shacabku haddaanu iska celinin oo aanu garab istaagin dawladda oo ninka ku dhex jira aanu sheegin wax qabsoomay mare Minnesota ay idin la joogaan waa ogtihiin waa laga wada wareegayaa waa idinku ina bilaawdan dagaalka halkan idin la joogaan systemka ay caayaan ee gaalada ay ku nool yihiin reerooda ku korsadaan haddana waxba ka sheegayaan yani laba wajiilnimo inta ka wan adduunyada ma arkaan marka waxa weeye runtii nin kastaaba shaqo gooniya nin iyo naag waxba ka saaran shaqo gooniya inay iyagu ka shaqeeyaan nimankan meesha joogaan inay sheegaan mas'uuliyad baa ka saaran talabaad waxa weeye iyagu mowqifkoodii way cadeysteen annagu muxuu yahay Soomaali ahaan meel kasta la joogo mowqifkan muxuu yahay iyagu way cadeysteen ajandahooda annaka ajandadu muxuu yahay ma isku xidhannahay isku ajanda ma nahay mise waxa weeyaan Minnesota la joogo how united are you waxa weeye wali waxaan u maleeyaa leedinku ma oran laakiin waan arkay runtii Minnesota waxa tihiin dadka Soomaaliya dhan sheegato including myself anoo inkastoo yara fogeysano tiradan wareer California waxa weeye halkan waan arkay shopping centeradiina idinku ina yeelataan way shopping centeradiina businessyadiina oo kala ijaarataan markaa waa sida gaalada tiraado charity starts at home nin kastaaba waa inuu meesha joogo iyo gurigiisa iyo magaaladu degan yahay uu ka bilaabaa abaabulka markaas aan anaguna Soomaaliya noqonaynaa because waa taqaanaan Mareykan maanta Irishka Italianska dadka degan oo dhan dalkooda iyaga u hadla meeshii adduunyada laga maamulayo halkan annaka yaa noo hadlay markaa ku shaqo halkan isugu soo biyo shubtay maanta Mareykan ba adduunyada rangareeyay waa la ogyahay taa marka dadka Soomaaliya jooga waxay leeyihiin reer America maxaa ku dhacay especially Minnesota iyo Columbus Ohio marka xagga mas'uuliyad weyn baa idinka saaran khaladaad way dhacayaan xaggayga xagga security-ga of course gaashaandhig wasiirka gaashaandhigga waan ahay laakiin
100% security ilaahay un baa keena. Maraykan bay ka dhacdaa, Yurub bay ka dhacdaa, Carabtay ka dhacdaa, laakiin waxa weeye security ugu weyn sidii nimco sheegtaalka soo istaagtay waxa weeyaan guriga ka bilaabmaysaa. Caruurtiina waa inaan lidinka maskaxdooda lidinkala wareegin. Ilmahaaga guriga kula jooga wuxuu qabanayo, wuxuu samaynayo, iskuul ku tago, ciduu la hadlo, waxa weeyna ogaataan. You have to be involved. maanta waxa weeye meesha la inaga soo dhacay waa halka gurigii baa la inaga soo dhex galay, waa maskaxdii baa caruurtii lagala wareegay dadkii. marka waxa weeyaan qurba joogga mas'uuliyad weyn baa saaran. dalkii marka anu markii la igu yiri shaqada la ii sheegay, of course few seconds bay ugu qaadatay, laana waxa weeyaan you're either part of the problem or the solution. waxaan markaan solution ka qayb galaya, at least waan tagayaa intaan ka geysan karaan ka geysanaya. idinka kulligiina saas la idinka rabaa, idinkoon annaka wax naga sugin. reer Minnesota imika dad baa ka yimi, runtii shaqo fiican bay soo qabteen, way soo arkeen, waana ku mahadsan yihiin, waana idin wada filanaa kulligiina inaad soo noqotaan. xagga nimanka halkan degan ee militariga iyo booliiska iyo dadka experience-ka ula dowladdaba aad baa laydinku baahan yahay inaad timaadaan. ama shaqaha laydin haynin marka hore, laakiin waa inaan la yimaadaa. meesha cidina idinkama hortaagna, expertise-kina waa loo baahan yahay, waana ogtihiin dalka waxa ka taagan. marka xagga horumarka runtii horta aan u noqono, maxaa qabsoomay intaan maalinta dhaweyd qaraxii foosha ma dhicin. waa ogtihiin al-shabaab waa tii muqdisho laga saaray. taa in itself waxay keentay challenge cusub, laanno intii la hayay afar laab baa mar kaliya dowladda kusoo fakatay. runtii waa la isu tegay iyadoo united la yahay, sidii wasiirku waa idin sheegay. waa waxaa la keenay markaas strategy, annakii amisom, xagga militariga, xagga booliiska, nabad sugidda, maxkamadii, waxaa la sameeyay meeshii la qabtaba in la tago oo nabadda la sugo oo lagu hubsado inaan dadka wax la yeelin, alaabtooda la biliqaysan, booliiskii la keeno, maxkamaddii la keeno, oon xataa xaafadaha qaarkood lagu degdegin. oo taas naga soo yara gaadhay xooga in yaroo dhaliil ah, laakiin annaku waxyaaba aan ogeyn baa jira, aan ogeyn annaku oo dadka ogeyn baa jirtay oo la sugi kari waayey. taasuna waxay ahayd nimankan xaafadaha waxay kaga tageen miinooyin bay kusii aaseen, guryuhu dabareeg way ku sugayeen dadka iyagoo dhar xidhan plain clothes oo shicibka iska dhigaya. marka waxay noqotay in program loo sameeyey si looga saari lahaa. yimi xaaskiisii iyo carruurtiisii buu keenay. taasi waxay dadka tusaysay in horta waxa kugu dhacay ilaahay baa gacanta ku haya. markuu yimi saasoo kale muu samaynayna wuxuu yidhi aniga Soomaali security-gada ilaalinaysa, cid kale ilaalinaysa, wuu diiday gaariga qofulna inuu galo. wuxuu yidhi dadkan dhex maraya, waan taabanaya, waan salaamaya. markuu arkay dhibaatadii ka taagnayd meeshana wuxuu goostay inuu completely Soomaaliya dib u dhiso. marka isagu waa laakiin nin inoo yimi oo dal kale ka yimi oo muslimnimo inoogu kacay. runtii inaan u mahad celinno waa waajib bay nagu tahay, laakiin innaga kulligeenna collectively saasoo kale inaan samayno ayaa loo baahan yahay. laakiin tii uu sameeyey waxay keentay in dalal badan ay noo yimaadaan oo ay dhirinoo gasho. runtii alxamdulillah muqdisho oo markaa waxay si wasiirku sheegayba oo runtii dadku soo baxeen maalmihii ugu horreysay ee la qabtay muqdisho, waxaa dhacday dadku inaan aaminsanayn xorriyadda ay heleen. laakiin markii adigu dhowr way ka soo wareegtay, dadkii noo yimaadeen, macaawanadii bilaabantay, maaragtay businessyadii baa dib loo hagaajistay, guryihii baa la hagaajistay. waa maaragtay waxaa soo noqotay in nabad lahayn karo. annaka naftarkaygu waxaanu goosannay in haddii sidan ay ku socoto waxaa soo baxay light at the end of the tunnel, in yaroo maaragtay leyl mustaqbalkii ah. dabadeed iyadoo sidii ku socota waa tii dib u heshiisiinta, shirki baa dhacay. shir naftarkiisu isagana taariikh meel Soomaaliya meel weyn ka galaya, taariikhi bay ahayd. leanna waxay ahayd markii ugu horreysay ay Soomaaliya inta la isugu yimaado lagu heshiiyo, weliba yani shir ay Soomaali maamulayso oo ay go-aankeeda iyadoo leedahay waxa ka soo baxa. oo runtii idinku waxaa aragteen wixii ka soo baxay resultka, laakiin 3 cisho oo waxay ahayd yani 24 hours maaragtay la isku noqnoqonayay oo qodobyada qaarkood la iskaga hor yimi, haddana la goostay in Soomaalinimada laga raaco oo dad badan maaragtay tanaasul
markii ugu horeysay la kala dambeyn ay timaado marka taas naftirkeedu waxay mudan tahay in la sheego horumarka halkaas laga gaaray xagga abaaraha waa ogtihiin runtii waxa ka dhacay Soomaaliya oo dhan wax runtii iyada naftirkeedu cajiiba waxaan anu qabaa inay tahay runtii in many ways innaka naftirkeenu dambi baan ku leenahay leena waxa weeye nin dhulka noocaas haysta badda inta leeg haysta dad isku afa isku diin isku dada ya inuu maanta gaajo u dhinto ya naftirkeenu war maraad isku eegna weeyaan loo baahan yahay laakiin way dhacday abaartii waxay noqotay dadkii loo gurmado alxamdulillah dunyada dhow inoo soo gurmatay annagu dawlad ahaan intii taagteeda ahayd waanu qabanay waxyaabaha aan goosanay xataa maarta lala yaabo waxay ahayd in markii la keenay caawimaadii in areadii ay deganaayeen xataa ay al-shabaab ku joogeen aanu u ogolaano in la geeyo ay iyagu ka hor istaageen taas marka waxay intusaysaa haddii xaggii tacliinta lanaga abaaray oo ay cuntadii dadkii dhimanayay u diidayaan yani waxaan u malaynayaa wax kaloo aad u baahantihiin inaad ogaataan ma jirto mowqifkooda waxaan u malaynayaa markii hore aan ku soo noqdo arrintii ahayd gaashaandhigga iyo militariga iyo inamada runtii geesinimada muujiyay ayagoo ama sida la yiri aan cunto helayn mushaar helayn frontka ku jira waa run iyaga ka horeeya qolooyinka kale ee runtii walaalaheena inoo yimi iyaga naftirkooda maartay kaga dhintay dad badan dagaalka iyagoo ina garab taagan dad badan baa iyagu goostay yiri waan soo direynaa askar laakiin laba Uganda iyo Burundi mooy cid kale ma imanin inama iyo gabdho badan baa kaga dhintay iyaga naftirkooda Soomaaliya si inaka inoo caawiyaan laakiin intaanan u gudbin xagga maartay waxa loo siin waayay mushaaro cunto heli waayaan waxa weeye sidee bay ku yimaadeen way question in la isweydiiyo waxay ku yimaadeen Soomaali marxalado badan bay soo martay oo dhowr waji leh mar waxaanu ahayn reer miyi mar waxaanu noqon isticmaar bayna qabsaday waanu is xoreynay waxa marba waji gooniya lahayd ama musuqmaasuq ha noqoto ama military ha noqoto ama warlords ha noqoto ama niman diin sheeganaya ha noqoto dhowr waji bay soo martay intaas oo dhan Soomaali ayaa involved ku ahayd marka maanta arrinta taagan innaka halkaas soo dhignay marka waxa weeyaan waa in la eega haddii adigu aad ismaamuli weydo adigu isbaabi'iso dulli iska dhigto waxa weey waa lagu imanaya waa lagu talinaya